sababaya malahan in aan alaabtaas soo dhoofsano mar hadaa soo dhoofsan karno mashiinadii loogu talagalay inay sameeyaan. maadaama ay hadda ay fududaatay inaan helno mashiino wax soo saar leh oo warshad dhan noqon kara, ma jirto sabab aan usoo dhoofsanaa waxyaabaha qaar anagoo ku samaysan karna wadankeena gudihiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادي channel كيغا مقعيغا وحاوات توريس إكران oo ku nool dalka Shiina. Marka videogan insha Allah waxaan idin kula wadaagi doonaa mashiino yar yar oo lacag badan idinka galaynin oo soo dhoofsan kartiin, wax soo saarna leh, lagana maarmi karo in waxaas laga soo dhoofsado wadan kaleeto. mashiinadan aan ka hadli doono waxaa waaye mashiino soo saara wax aan maalin kasta isticmaalno, oo mashiinkaasna uuna kaaga baahani doonin lacag zaid u badan ama space oo weyn. marka waxaan rajeynayaa inaa ka faa'iidin. hadaa u baahan tihiin mashiinadan inaa heshiina, waxaan idin hayaa suppliero oo la aamini karo, qualitygooda, pricekoodana macquul yahay, aan insha Allah direct idinkugu xiri karo. waxaan igala soo xiriiri kartiin numberkayga ama meeshaan idin soo dhigi doono oo whatsappkayga ah. sidaas darteed insha Allah marka aan hore u gadagalno videogeena. mashiinka u horeeya waxaa waaye mashiinka loo yaqaano thermal forming machine. mashiinkan waxaa waaye mashiin sameeya waxyaabaha caayiga laga sameeyo, haddii noqoto caayigan oo jibsiga lagu rido kaleeto, kuwan caayiga oo biyaha lagu cabo kaleeto. caayigaas waxaa laga sameeyaa, mashiinkan wuxuu sameeyaa marka kuleel iyo pressure uu wuxuu ku sameynaa shapekaas adaa dooranaysid oo loo sameynayo. sheeg kala duwanaa sameyn kartaa, waxaana ka caawinaysaa shirkadaha yaryar oo u baahan packagingka in ay wax package gareeyaan oo packagingkooda kasoo qaataan dibadaha, ayaa waxaad ka caawinaysaa in si raqiis ah oo time badanna ka qaadanaynin ugu soo saari kartid packagingkooda. waana wax hadda yani Soomaaliya kaliya ay u baahneen, ay u baahan tahay Afrikada iyo wadamada deriskeena. marka mashiinadan laba nooc ay u kala baxaan badanaa, laakiin hadda nooca idin sheegay aan focus ka saaraya. mashiinka xigo oo aan ka hadli doono waxaa waaye mashiinka sameeyo rogaga. taa umaleynaysid ma ahan, waa يعني أول ماشين waxaa lagu sameyn jiray gacanta, maxaa la dhahaa isheeg waagii hore si oo yani dib badan loo sameyn jiray oo waqti badan ka qaadanayo saa aragtiinba. laakiin hadda saas ma ahan. hadda mashiinkan literally waxaa waaye waxaa u baahan tahay in aad soo saartid roog yar. maxaa la waxay ka qaadan kartaa 3 ilaa 4 saacadood adoo gurigaaga dhex joogtid. maxaa la dhahaa isheeg oo yani designka arabtid inaad samaysidna aa og tahay, ya aaday u fududahay. waqtigaasna wuxuu ku xiran yahay designka arabtid inaad samaysid iyo roogaas inta uu la eg yahay. businesskanne sababta uu u fiican yahay waxaa waaye hadaa muslim nahay meel kasto roogaa wadanaa, ama salli ha ahaado ama roog yar ha ahaado dhulka lagu fidsado, ama midka guryaha lagu qurxisto oo fadhiga agtiisa la dhigo, kuwa sariiraha agtiisa la dhigo, meel kasto uu noo yaalaa roog. hadaa muslim nahayna waxaa waaye zaaid abu isticmaalnaa. marka fikradan waa fikrad aad iyo aad u fiican, wuxuuna ku fiican yahay adigoo gurigaaga joogtid aad sameyn kartaa. hadaa ka socono mashiinka kale aan ka hadli doono waxaa waaye mashiinka sameeyo jeestada. imagine guys, jeesta ugu yar wadankeena laga heli karo raw materialkiisa meel kale kasoo dhoofsanaa. Soomaaliya iyo Afrikada kaleetana weli waxaan yani aan sameynaa inaan isticmaalno jeestada iyo sabuurada. marka mashiinkan oo sameeyo jeestada hadaa ogaa lahayd siduu fudeed u yahay, mar hore aa ka faa'iidaysan lahayd jaaniskan. in la sameeyo jeestadana kaliya waxaa u baahan tahay dhagaxyaashaas iyo inaad si fiican u package garaysid oo ship garaysid meel kasto, not kaliya Soomaaliya, meel kasta oo yani ku dhow ayaa u diri kartaa. markaanne aa u gudubno mashiinka kaleeto waxna ka duwaneen mashiinka jeestada oo quseeyo waxbarashada iyo iskuulaadka. mashiinkaasoo ah
midka sameeyo qalimaanta. Ball pen production machine loo yaqaanaa. qalinkana waxaa waaye wax maalin kasta aan isticmaalno, qof kastana uu isticmaalo. wuxuu ka isticmaal badan yahay jeestada dhihi karnaa, maadaama uu arday kasto, macallin kasto, jaamacad kasto, iskuul kasto, maxaa la lahaa company kasto, like meel kasta aad ku fakiri kartid qalin waa la isticmaalaa. marka in aad noqoto qof keenay mashiinka sameynayay qalimaanta, imagine faa'iidada ku jiri karto. heer waxaa gaari kartaa qalimaantaas Soomaaliya dhaafsiisid oo Afrika iyo daafaha caalamka aad gaarsiin kartid. qalinka meel aan lagu isticmaalin malahan. waxaa hubaa adigaas ifdaawanaya inuu miiskaaga kuu saaran yahay qalin ama dhowr qalin. waana wax hubaal ah in aad lacag badan ka sameyn doonto, sababtoo ah waa wax maalin kasto mar kasto la isticmaalo. mashiinkaas sida loo operate gareeyo zaaid u fudud yahay. waxa kaliya u baahan tahay inaad kalaraan badan isku qasto oo ku buuxiso inkigaas qadaas kaliya. markaas waxaa u baahan tahay in aad brandkaaga magaciisa ku qoratid qalinkaaga oo packaging qurux badan u samaysatid, suuqgeena u samaysatid. saasaan waxaa ku bilaabi kartaa inaad brandkaaga qaaska ah yeelatid oo qalimaanta quseeyo, oo markaasna aad bilaawdid gaditaankooda. mashiinka xigo idin wado waxaa waaye mashiin sameyn kara sigsaamanka. sigsaamanka waxaa waaye wax mar kasta loo baahan yahay, dadka dhanna ay wada gataan. for example ciyaalka yararka iskuulka loo diraayo, dadka waaweyn shaqada aadayo, qof aan isticmaalin male sigsaanna waa waxaan laga maarmin oo maalin kasta la gato. actually maalin waxaa dhageysanayay 2 nin oo yacni jaamacad ka soo baxay oo raadinayay wax shaqo ay qabtaan, yacni wax ay soo saaraan. marka waxay dhaheen waxyaabo badan aan isku daynay, markii dambe waxaa go'aansanay inaan soo saarno sigsaamanka. you cannot imagine lacagta ay ka sameeyeen iyo faa'iidada ay ka heleen inay sigsaamanka soo saaraan. awalka hore sigsaamanka in la soo saaro waxaa lagu qasbanaan jiray gacmaha in la iskula tolo maryahaas, laakiin hadda waa laga baxay. waxaa jiro mashiino soo saarayo halkii saac intaas oo maxaa la lahaa sigsaaman, like kumanaan sigsaaman. marka si dhaqsi leh, si oo ma arkino yani different quality gan adaa dooran kartid. mashiinkaas wuxuu kaa caawinayaa in uu soo saaro sigsaamo badan saacado gudahooda. sigsaamanka aad soo saaraysid haddaa ku dadaashid qualitygooda inay fiican yihiin, colorkooda iyo designkooda markasta inay updated yihiin. waxaa sameyn kartaa in aad Soomaaliya kaliya inaad gaarsiisid iska dhaafay inaad Afrika dhan gaarsiisid, wadamada caalamka oo naga shisheeya xitaa aad gaarsiisid. sidaas darteeda waa inaa si caqliyan uga fikirtaa mashiinka aad rabtid inaa soo gadatid iyo waxa aad rabtid inaa focus gareysid. mashiinkan oo kaleetana waa wax aad ka faa'iideysid lacag aad u badan, sababtoo ah baahidii way jirtaa. haddaa ka heshay videogan oo jeceshahay inaan soo badiyo videoyada saan oo kaleeta ah, commentiga igu soo sheega, like, share and subscribe. insha allah khayr badan idin rajeynaya. maca salaama.